in aad iyo aad baad u mahadsan tahay kudun agaasimaha Soomaali Irish Media waxaan kaaga mahad celinayaa runtii shaqada weyn ee ummadda Soomaaliyeed dalkan Ireland u hayso su'aashaada ku saabsan waxay jiraad ku qoreen arrimahan ku saabsan dhalashada qaadashada dalkan Ireland hore idaacadda Soomaali Irish Media waxay u baafisay in xeer cusub oo soo baxay oo runtii maxkamadda sare ee dalkani ay runtii xeer adag ay ka soo saartay oo ah in xeerkii ugu horeeyay ee qaadashada dhalashada oo la sameeyay wadankan 1956 qaadi ka tirsan maxkamadda sare sideedii looga fuliyo oo waa in wadanka qofku marka ugu dambaysa sanadka ugu dambaysa sida ogtahay dhalashada wadankan laba siyood baa lagu qaataa ama guur baa lagu qaataa oo 3 sano qofku markuu joogo dalbadaa ama waxa lagu qaataa qofku inuu deganaansho 5 sano deganaa marka sanadka ugu dambaysa ayaa waxa la yiri waa inuu wadankan qofku aan maalin dhinac uga bixin arrintaasi runtii waxay keentay walaac weyn bay keentay oo dad badan baa runtii in hawshaasi ay dhibaatooyin ku haysay 17kii July bay soo baxay xeerkaasi marka maxkamadda sare marka iyo waxa marka madaxa sare iyo wasaaradda cadaaladda wasiirka cadaaladda runtii waxa uu arrintaasi la tagay golaha baarlamaanka si uu xeer uga saaro xeerka lagu jabiyo sida ogtahayna inta badan wasaaradda cadaaladdu dadka ma garanaysaa kuma adkaynin taas oo waxa iska jirtay xeer jab ah in 6 week qofku wadan ka maqnaan karo sanadka ugu dambaysa arrinta laakiin waxa daaha ka rogay oo soo saaray waxay ahayd nin Australian oo dalkan dalbanayay dhalashadiisa oo jaamacad wadanka ka dhiga in magaranaysa lagu diiday arrin ah in aan wadankan si toos ah u deganayn maadaama oo sanadkii ugu dambeeyay fasax ku aaday dalkiisii wadankana jaamacad ka dhigo shaqadiisu ay tahay inuu socdo 7 cisho ayuu runtii fasax wadanka ka maqnaa arrintaas markaa waxay keentay inuu go'aankaasi lagu diiday uu ka qaato abiil maxkamadda sarena uu la tago maxkamadda markaa qaadiyadii maxkamadda sare runtii go'aankiisii bay raaceen wayna ka qabaleen codsigiisii waxaana runtii qaarkood ay ku tilmaameen kuwa maxkamadda sare jooga in arrintan tahay arrin aad iyo aad u adag oo runtii aan waqtiga la tilaabsan karin oo aanu qofna meel kaliya ku xidhnaan kareynin oo aanu magaranaysaa dhinac u bixi kareyn haddaba jaraa'idkan dalka soo baxay sida Irish Times ko kale iyo journalka oo isna jaraa'id online iyo idaacadda weyn ee Newsweek kuwa intuba waxay maanta aad iyo aad uga hadlayeen oo qaada dhigayeen arrinka taas ku saabsan ninka Australian-ka oo John la yiraahdo iyo arrin kale oo runtii aad iyo aad u muhiimsan oo taaba ka sii daran oo ah inay arrinta falanqeeyeen ku saabsan waqtiga la sugayo dadka in codsigooda la sugayo oo ay ku tilmaameen journalka jaraa'idka la kale waxa ay ku tilmaameen tahay xabsi oo kale oo nin Australian nin Suudaaniya oo magaranaysaa 2016 dalbaday dhalashada dalkan oo aan ilaa imika jawaab la siinin ayaa ku tilmaamay inuu xabsi tahay oo kale oo aan runtii ilaa imika wax jawaaba aanu ka helin codsigiisii sidoo kale waxay la hadleen gabadha Fiona oo koog joogta oo ururka naaska haysata oo dadahadii qoray imigrantka oo tiri labadii xeerka wuxuu dhigay 6 bilood in lagu dhameeyo hawshaasi laakiin ilaa imika waxaaba yaraatay hawshaasi la ka qabsoomay ma jiro marka jaraa'idka Irish Times ko kale waxa uu ka sheegay in 16,000 oo qof ay ku jiraan Alaam Salaam Maxamed arrin dhinacna aan jirin oo ah in aan waxna loo gaano la diidin ay ku jiraan waxay ka sheekeynayaan runtii ilaa iyo bisha September in dad badan oo magaranaysa 16 ku gaaraya oo qaar ay iskugu jira imika dalbaday oo cusub qaar codsigoodii socday iyo qaar magaranaysa loo diyaariyay in la siiyo magaranaysa shahaadadii dhalashada in intiiba runtii ay xaniban yihiin oo aanay waxba yaraatee aanay waxba u soconin marka waxa arrinta kale ee miimka ay ka dhawaajiyeen waxay tahay in 2016 markii Ingiriisku ka baxay 2016 markii Ingiriisku ka baxay Europe in dadka ugu badan ay runtii wadankan ay soo dalbadeen dhalashada wadankan taas runtii ay keentay dad badan ay runtii inay nehelin waqtigii loogu talagalay hawsha lagu dhameeyay wasaaradda runtii cadaaladda oo ay u qaabilsan dhalashada bixinta dalkan waxa jira koox la yiraahdo 61 shaqaale 61 oo degan Tipperary oo iyagu inta badan qaabilsan hawshaasi ninka madax ka ah runtii waa la weydiiyay sababta ay u dhacday in inta in leeg dadku aanay helin wax jawaab oo runtii waqtiga inta leeg ay qaadatay marka wuxuu ku tilmaamay in ay hawshan tahay hawl aad iyo aad u adag oo runtii dadkii lagu sameeyo background check upkii oo qofka meeshu ka yimid iyo waraaqishiisii iyo cadayntiisii iyo wixii oo dhan in qofkii laga rabo taasina marka runtii ay u baahan tahay buu yiri maadaama baasaboorkan Irishku yahay baasaboor wadamo badan laga ictiqaarsan yahay dawladaha runtii aan xiriir kala leenahay in aaminsan yihiin marka in cid aan siinana runtii ay tahay cid aan hubinay oo aad iyo aad aan u sheegaraynay taas runtii marka keenaysa marka Irish Times runtii waxay aad uga warrameen bal process-kan la marayo laftooda isweydiiyeen oo hay'adahan la marayo oo ku saabsan inay yihiin kuwa aad iyo aad u adag oo runtii waqti badan qaadanaya oo dadka aan garanaysaa wax cadayna aan siinaynin sidoo kale waxay sheegeen in marka dadka email ay u diraan oo kale ay runtii ugu jawaabeen emails kumida inta badanna ay jiraan
in hotline lagala hadlo oo ah 4 saacadood baa week dhan aan la misaal maxamed ay nimankaasi runtii qaataan telefoonka marka waxay ku sheegeen ninka madaxa ka ah qaybtaasi in imanka isbedel weyn uu ka socdo oo degdeg weyn la gelinayo waxaan moodaa runtii in aad tooshka loogu ifiyay in oo loo tusay runtii inay jirto arintaasi marka waxa jira xitaa dad iyaga laftoodu European oo Ingiriis ka yimid iyo dad Serbian oo runtii iyaga laftoodu iyo qaar Egyptian oo lagu wareysanay meesha iyagu laftoodu waqti badan runtii sugayay oo ilaa imika wax haba yaraatee jawaaba oo ka soo baxay aan jirin arinta kale muhiimka ah waxa ay tahay in wax lagu farxa ay noqoto in go'aankii maxkamadda sare ee ahaa in qofku sanadka ugu dambeeya aan wadan ka bixin in la jabiyay qodobkaasi oo maxkamaddu runtii ay ku kala qaybsantay ilaa imkana wasiirka cadaaladda waxa la filayaa inuu isna sameeyo xeerkaasi oo runtii ka bedeli doona arrinta marka la isku soo doodoobo waxay runtii imka tusaysaa in dhaartii dadkii la dhaarinayay dib loo dhigay oo haddana dib loo dhigay oo September ay hayeen dhaariyo haddana imka la leeyahay December baa dhaarinay ilaa imkan aan la hubin laakiin waxay ku adkaysanayaan dadku inayna kaniya jabin ee runtii codsigooda ay soo diraan oo ay wixii ay runtii hayaan ay keenaan arrinta ugu muhiimsan ee kale ay isku daysa Irish Times inay iftiimiso waxa ay tahay bal habkan ay marayaan in stage-da waaye mid la wareystay mid kamid ah wuxuu yiri waxa mar lagu oranayay stage 4 baad maraysaa mar stage 2 mar laga yaabaa in stage-ka 20aad loo geeyo marka bal iyagu waxay isku dayeen inay arrinta tan ay taxliil ku sameeyaan oo ay hoos u degaan marka waxay yiraahdeen 3 process baa la maraa براسكو هوريا waa koowad stage ka koowad wuxuu sheegaya qofkii waraaqihiisii iyo wixii magaranaysaa looga baahnaa documentationkii laga aqbalay oo ay markaa u sheegaan in wixii iyagu ka hayaan stage kaasna qofku waa meesha ugu horeysa ee wixii magaranaysaa isha la marinayo iyadoo si hoose loo eegaynin stage ka labaad oo stage 2 la yiraahdo waxa weeye waa ka meesha mucda ah ee runtii aadka loo falanqeynayo ee wax walba la kala daadinayo ee runtii qofka aad loo sii dhexgeliyo xaaladiisa iyo wixiisa waana meelaha ay magaranaysaa waqtiga ugu badan ay ku sheegeen inay qaato ah in meelihii ay qofkani uu ka yimid ee dibadda ka baxsanaa inay la xiriiraan taas oo ay ku tilmaameen wadamada qaar kood inay markiiba sahal tahay laakiin meelaha qaar koodna ay waqti dheer qaadato taas oo ay ku adkaysanayaan inay tahay meesha ugu magaranaysaa muhiimsan ee qofka lagu kala garanayo inuu qofkan yahay qof la siin karo arrinta kale ay sheegeen waxa weeyaan inay markaa stage-ka labaadka ay joogaan in la xiriiraan hay'ado kala duwan oo ay wareysanayaan bal hay'adaasi qofkan magaranaysaa wixii wadankan intuu joogo uu sameeyay arrinta saddexaad ugu muhiimsan oo ah stage-ka labaad ku dhex jirta waxay tahay qofkan character-kiisa eegayaan dabeecadiisa qofkan qof wanaagsan oo la siin karo ma yahay marka labada stage baa ku soo dhaafay stage-ka saddexaad bay imanaya marka ah uu sirkii la hordhigayo oo ah in qofkan ma la siin karaa oo uma u qalmaa inuu qaato dhalashada iyo in kale halkaas marka waraaqda dhalashada lagu soo 4 week ka hor inta dhaarta aanay gaadhin arrintaasi marka sida la mooday waxay tahay waxaad khayr moodayso shar moodayso khayr ku ajira laga yaabaa marka arrintii maxkamadda sare ay keentay oo ahayd in dadka magaranaysaa dalbanaya in dhalashada wadankan sanadka ugu dambeeyay inay wadanka joogaan inay keentay arrin ka sii duwan oo ka sii mug weyn arrin kale oo aan la ogeyn oo ah arrintan dib u dhac faraha badan ku keentay dadka codsanaya dhalashada wadankan oo 4 sano 3 sano jooga taas marka runtii jiraadku aad iyo aad u hadalhayeen in aad iyo aad baad u mahadsantahay assalaamu calaykum